gabadha magaceedu waa Mulki ku nooleed Muqdisho waxayna ka mid ahayd arday wax ka bartay magaalada Muqdisho mid ka mid ah jaamacadaha ay dhiganaysay. Wallaahi waxaana ahayn dad aad iyo aad isku jecel. Asaxaatay qaraxii soo baxay hadda kii dambe 29 bishii 10 ay ku geeriyootay ayadoo kasoo baxday jaamacadda gaari bas soo saaran wadana markaas wadada ay ilinta ka qubanaysa oo aad maqlaysaan daawadayaal waa Cabdisamad oo ah shakhsi xaaskiisa waxba aan dhaamin ay uga geeriyootay labadii qarax ee wasaaradda waxbarashada lagu weeraray dhowaan. Waa uu ilmeeyey kadib sheekadiisa oo wadata qiiro gooniya oo uu nooga warramayo ayaan warbixinteenna diiradda ku saari doonaa saaxiibayaal. Muuqaalka like saar haddii aad tahay shakhsi damiir muwaadininnimo ay ku jirto. Mahadsanid daawade. kulanti habboon saaxiibayaal meel kastoo aad dunida daafeeda ka joogtaan ku soo dhowaada channelkeena Ducaysana Media iyo page-keena Ducaysana Media oo alaabaan idinkugu soo gudbinno warbixinada iyo qisooyinka markaa xiisaha leh. Magaciisu waa Cabdisamad, waxa uu nala wadaagay qiso xanuun badan oo qof kasta oo damiir leh uu qiiroonayo marka uu maqlo. Mulki iyo Cabdisamad xiriirkooda waxaa ka dhinnaa oo kaliya inay isguursadaan, balse tii Allah ayaa meesha soo gashay. Qisada sida ay ku bilaabatay Cabdisamad oo ii warramaya. gabar aad u jeclaa Muqdishona ku nooleed kuna geeriyootay qaraxii soobe weliba kii dambe soobe ka dhacay 29 bishii 10aad. Ducaysana gabadha magaceedu waa Mulki ku nooleed Muqdisho waxayna ka mid ahayd arday wax ka bartay magaalada Muqdisho ayadoo kasoo baxday jaamacadda gaari bas soo saaran wadana markaas wadada ay soo marayeen oo ka dhacay. Ku mahadsanid daawashada muuqaalkan. Fadlan muuqaalka like saar sida uu u baaho.